السلام عليكم. سلام كدب waxaan ku hayaa talooyin muhiim u ah doorashada lamaanahaaga. Marka hore, ha raadin qof buuxa oo ka dhammaystiran meel kasta. Raadi qof aad isfahmaysaan, hadafkiina noloshana ay tahay mid isku mid ah. Midda labaad, isweydii lamaanahaaga ma u qalmaa inuu noqdo hooyo ama aabe carruurtaada mustaqbalka, mana qaadi karaa mas'uuliyadooda. Midda saddexaad, qof kasta waxaa lagu qiyaasaa asxaabtiisa. Si fiican isaga eeg asxaabtiisa, waxaad ogaanaysaa qofku uu yahay iyo meesha uu tiigsado. Midda afaraad, ogow familka uu ku soo koray lamaanahaaga, sababta oo ah dhaqankiisa iyo qaabku uu fikirayo ayay qayb ka qaadanaysaa, waana la xidhiidhi doontaa. Midda shanaad oo ah, guurku wuxuu sitaa barako ha uga cabsan dhaqaale awgeeda. Allah wuxuu leeyahay haddii ay sabool yihiin, alla isagaa deeqdiisa ku hodminaya. Midda lixaad, kala sheekaysa qofka aad rabto inaad guursato, sida aad u rabto in ay noqoto noloshaada iyo qaabka aad u rabto inaad u wada noolaataan. Todobo, eegmada guurka ka hor waa muhiim. Waxay qalbigaaga gelinaysaa qanaaco iyo daneen, guurkuna wuu kuu barakoobaa. Midda sideedaad, ha u guursan si aad dantaada u gaarto, sababtoo ah guurka waxaa saldhig ku ah jacayl, jacaylkuna ma ahan danaysi. Midda sagaalaad oo ah midda u dambaysa, waxaad iska ilaalisaa inaad guursato qof leh laba dhaqan oo kala ah, qofka hadlaya gacmihiisa oo xanaaq badan iyo qof baqiil ah. Sidoo kale kala dooro haa ama maya, si aad boqolkiiba boqol u ogaatid in qofka aad rabto inaad guursato uu yahay mid kuugu habboon noloshaada. Marka hore, isku aragti ma ka haysataan guurka? Ma isku fahantaan si walba? ma ka heshaa daryeel, naxariis, kalgacal iyo ixtiraam? Xiriirka salaada ma yahay mid toosan? Ma wanaagsan yahay xiriirka labada waalid? Sidoo kale ma ku kalsoon tahay? Isku aragti ma ka haysataan xalinta haddii aad iskhilaaftaan? Ma jeceshahay in noloshaada inta ka dhiman aad la noolaato? ma leeyahay ama ma leedahay dulqaad, macnaha sabar? Sidoo kale sidaad u kala qaybsan laheedeen mas'uuliyadda idin saaran ma ka heshiideen? haddii jawaabta mid ka mid ay noqoto maya, waa inaad si fiican ooga fikirtaa. Tusaale ahaan, haddii aadan ku kalsooneen, haddii aadan isfahansaneen, haddii aadan aragti ka haysan guurka, taas macnaheedu waxay tahay maya, waana inaad si fiican ooga fikirtaa, sababtoo ah ma ahan xiriir muddo jiri doona. Haddaba si fiican ooga fikir. Ugu dambeyn, ha raacin muuqaal, way ku qaldi karaan. Ha raacin dhaqaale, wuu dhammaanayaa. Dooro qof farxad kuu keeni kara, sababtoo ah dhoolla cadeen keliya ayaa maalin mugdi ah ka dhigi karta iftiin. Sidoo kale waxaan ku leeyahay, xiriir jecel lah marnaba ha ku bilaabin xaaraan.